بسم الله الرحمن الرحيم إن شاء الله سعوتان ما أنت وحن دافرني مشروع آدي ودنك وحبين دولة نماديسة إيو دافرنانتيسة إيو هرمركيسة كانوا يقادنا oo ah la socoshada kaalmada ama gargaarka wadanka soo gala saala socona sanadkii wax ka badan 2 bilyan oo dollar ayaa wadanka soo gasha oo meelo ka badan gasha oo ka mid yahay arrimaha bulshada amniga dhaqaalaha dhinac walba marka waxaan garanay oo muddo hadda ka shaqeynay inaan sameeyno nidaam daahfuran oo dadka Soomaaliyeed arki karaan oo web based oo internetka website oo wax kasta oo wadanka soo gala meesh doona ka yimaado qofkii doona bixiyo sectorkii meesh doona hal galiyo la arkaro qofka soo Soomaali arki karo gali karo waxa gobolkiisa aaday degmadiisa aaday wadan guudaan wax soo galay yaa waxan bixiyay xaga laga keenay wadamada saaxiibadana kuwa wax keenay kuwa ugu badan soo kala badan yihiin wuxuu dhan kala la socon karo barnaamijkaas oo loo yaqaan AIMS ayaa maanta wasaaradda qorsheynta soo bandhigtay aan la wadaagnay bixiyaasha dhamaan dawladda inta khusayso waan hadda ka bacdana waa furan yahay qofka Soomaaliya arkara wasaaradda qorsheynta website-keedan laga helayaa oo ku jira wax badan runtii wadanku waa ka tiri doona hadalad waxa ku soo beegay maadaama wadanku hadda ku jira xaalad runtii emergency oo caabuqa corona oo adduunka ku faafayo in dhici karto in aan deeq badan dibadda ka helo ama dadka Soomaaliyeed dibadda ka soo diraan ama gudaha iska warino runtii la rabo in wax badan dadka la gaarsiiyo in qof walba Soomaaliya arko wixii wadanka soo galay sida loo qaybiyay meelaha kala aadeen iyo si loo tixraaci lahaa ama loo dabagelaa mashruuc kasta oo wadanka soo gala marka sababtaas keentay in la daahfur mashruucan la arko dawlad goboleed arkaan dawladda federaalka qaybadeeda kala duwan arkaan shacabka Soomaaliyeed arkaan deeq bixiyaasha dadka saaxiibadana laftooda arkaan meeshii ay haday kaalmada bixiyaan ama lacagaha bixiyaan qof kasta oo Soomaaliyeed dananaya inuu arki karo fiirsan karo oo mar dambe noqon karin wax ama gacanta lagu ururiyo ama wax ribooro dadka ajnabiga ay ka qoraan wadanka